doorasho dib u dhacda waqtigeedii sii jiitanta wax cusub maaha qof waliba xilliga isaga uu wax ka sheegi karo haddii wax hadda wax ka sheeg la yiraahdo ani waxaan ka mid ahay dadka xog ogaal u ah in xilliyadii aan soo dhaafnay baarlamaankii 8aad iyo kii 9aad in doorasho dib u dhac inay ku timid caqabadihii markaasi jiray way jiri kareen mar waliba laakiin xilli waliba haddana wax bay ku astaysnaayeen anaga baarlamaankiisii ka horeeyay 9 bilood ayadoo shaqeynayaan madal oo aan markaasi sharciyan oo anaga aan dood ka qabnay ka baarlamaan ahaan ayaa 9 bilood ayaa anaga xataa waxay na gaarsiisay dhaawaceeda in aanan wax mushaar la yiraahdo xataa aanan ila saarin oo baarlamaanka banaanka ka taagnaa shaqana ay socotay doorashadana ku soo gabagabowday xilli ka baxsan xilligii loo asteeyay sidaas oo kale haddana way ka horeysay doorasho kale oo xilligii baarlamaankii 8aad isagana ma aragtay dib u dhaca waa yimid waqtina waa lagu daray horta la yaab male dib u dhaca laakiin caqabadaha markaasi yimid ama jira hadiiba laga gudbayo waxoo dhan ayaa waxay yihiin meeshii aadan xabad uga gudbi karin aan dhahna anaga xaluul eeyaad baa looga baxaa ma gartay marka meeshaan sida ilkan ay ku nabad galaan ma gartay xeegana loo xagtaabay ma artay inta badan waa xeelad wax lagu socdo mar sharcigiiba laga xeeladaysanaya asagoo loo jeedo ayaa waxa la dhaq xagga kamera maxaa dhacay hadaa tiraahdo tan ugu weynay maanta cudur daarka yaalo waa iska ogtahay xaq la marabay xalaal rabaada xataa ma artaya hadii la isticmaalo xataa way iska noqon marka waxa hadda socdo kaliya sidii looga gudbi lahaa hadba caqabadii taalo inaan si xeerina mooyaane maxay u dhacday isay ku dhici kartaa iyo wax hadda maanta anaga dood nooga furan ma wata dib u dhacan dhowrka mar soo noqday hadii ilaa iyo sanadka ay sii jirtay ma laga yaabaa caqabad kale hor la inay ku timaado dadka Soomaaliyeed iyaga dawlad shaqeysa nidaam si hufan nidaam kalena ku bedela wadankana aan firaaq dastuuri aan imaanin oo vacuum ayaa maslaxadiisi guud ay ku jirtaa wata xilibaan aad baad mahadsan tahay dhanka kale hadii aynu eegno baraa waxay ka mid tahay goobaha loo asteeyay in lagu qabto doorashada xildhibaano badan ayaa kuraastooda halkaasi ay taalaa haddana hanaanka doorashada ee golaha deegaanka ee markaasi ka socotay Baraawe ayaa dhowr mar qallaaso ka dhaceen iyadoona markaasi dhibaato halkaasi laga soo warinayay saameyn atleeg ay ku yeelan kartaa kuraasta koonfur galbeed ee u asteysay in Baraawe ay ka dhacdo waa maadsan tahay Baraawe waa run waa xarunta labaad ee doorashada loo asteeyay markii Baydhabo laga yimaado koonfur galbeed ahaan waliba aniga dadka kuraastooda ku asteysan tahay ayaan ka mid ahay oo shabeellaha hoose ka soo jeeda degmada Afgooye Baraawe rabishka ka jiray wuxuu ahaa mid la xiriira councilka ama golaha deegaan oo laga dhisayay oo dadkii deganaa oo ayaga isku fahmi waayay xurguf iyo buuq ka dhashayna sababtay inay iska hor imaadyo ay dhacaan haddana hawshii socotay uma ayan istaagin waa la sii waday habeenkii daahfurka uu madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen Baraawe shacabkana lala hadlayay in gola deegaan loo dhisayna Baraawe loogu bishaareynayay wafdigii la socday xildhibaanada qaran ee deegaanka doorashadooda halkaasi ayaan ka mid ahaa dadku aad bay ugu heelanaayeen wayna u diyaar garoobeen laakiin mar waliba markii wax la qeybsanayo muran la'aan iyo dood la'aan iyo wax tirsi Soomaalidu caadi ayay u tahay laakiin hawsha socotay ugu dambeyn in gudoomiyihii
ay doortaan iyo ku-xigeenadii iyo intii kale ee xubnihii loogu talagalay inay ka mid noqdaan councilkii ama golihii deegaanka oo dhammaystiran ayaan ogahay. laakiin wixii dhacay hadday dhimasho iyo haddii dhaawac soo hooyisayba waxay ka wada hadlayaan dadka degan ee mujtamaca halkaasii jooga ayaan ogahay iyadana in dadaalkoodii ay wadaan. gobernorkii oo cusbaa ee tegey isagana in door sidii loo nabadayn lahaa iyo wasiirkii arrimaha gudaha iyo adiga hay-adihii ku shaqada lahaa ee koonfur galbeed inay madaxdoodii iyagana meeshaasi ay doorkii loo idmaday iyagana inay kasoo fuliyeen iyana waan ogahay. oo ugu dambeyntii oo shalay afgooya xataa buuq ka jiray ay soo gabagabeeyeen oo si kastaba mar waliba wax tirsasho way jiraysaa oo dad maanta wax tabayo oo si daacad ah oo xaq ah ku doodayo deegaanka maanta afgooye aniga aan ka soo jeedo sida waxay u dhacayeen haddii cid un wax tirsan lahayd ama cadaalad darro oo wixii la doono waxay ka mid ahaan lahaayeen dadka aniga aan ku matalo halkaasi dadka ugu horeeyo. laakiin mar waliba sida dadka maslaxadda ama dowladnimadu qadarinteeda ay la yimaadaan maxaa yeelay dadka qaarkood waxyaabo oo aanan horay oo aan loo arkin khaariqul caada ah ayay samaynayaan ama ayay isku dayayaan ama ay dadka kale ay ku kicinayaan. marka waxaasoo dhan dhibaato mar waliba la filan karana way tahay haddii ay timaadana laakiin in caqli saliima sida haddaba wax lagu xaliyay u malayn maayo haddii ay ku socoto inay saameyn xoog leh ku yeelanayso. taladaada ugu dambeysa dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya aad u jeedi leed oo arrimaha doorashooyinka la xiriira maxay tahay? horta waxaan rabaa haday taladayda ugu dambeysa ay tahay maanta horta inaan uga faa'iideyso macallin aan ahay 21 November maalintii macallinka inaan u hambaliyeeyo macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ayaga ay joogaan. marka xiga doorasho way dhib badan tahay laakiin hadba sida loo maamulo ayay ku xiran tahay. taa dhowr jeeran su-aashaasi waxaan uga jawaabay nafsa tabiica maxaa yeelay 69kii doorashadii dadka Soomaaliyeed ee sida aan fiicnayn loo maamulay waa tii keentay in dalka isbedelkii siyaasadeed oo ku yimid oo inqilaab iyo madaxweyne la dilay oo mudane Cabdirashiid Cali Sharma Arke waxaasoo dhan inay ka dhalatay doorasho si xun loo maamulay. anaga mar waliba dadka Soomaaliyeed ee wanaaga jecel dal kastaba iyo dowlad kasta mucaarad iyo maxaafid way jiraan. mucaaradnimadu in wax lagu saxo maxaafidnimaduna in lagu muujiyo waxqabad oo markaasi ee aanan ahayn laftirkiisa mid khayaali ku dhisan ama mid ujeedo badan ah. marka annaga waxyaabaha inta badan ee laysku maartay qabto Soomaalidu mucaaradnimo tii la yaqiinay ee constructive-ka ahayd ee wax dhisaysay waxaanan ahayn ayaa ku daba naban. maxaafadnimadiina dadaa si kale ee ayagana u fahmaya oo ayaga laftirkooda u baahan wax waliba waxa ay taageerayaan iyo waxay ku taageerayaan inay gartaan oo aanan noqonin immaca. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la takunu immaca kuwa yeeshaala ah oo iska maartay laakiin dad waxa dabeecan iskaba ahbo nin ku abuuran qof nacayb adiga yariisoo hadlay ama anaga aan hadlayno hadda caawa hadii comments-ka la fiiriyo midaa waxaa laga yaabaa xataa mawduuca aan ka hadlayno isagoonan garanayn inuu iska soo caaytamo oo uu u leeyahaybo akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan inuu iska maago. marka dadka noocaas oo kale haddii ayaga ay qeyb ay ka noqdaan ama saameyn ay ku yeeshaan ama intuu nin mas-uula oo macay aflagaado ku kalana asaga kuma ama reer ahaan iyo dad ahaan ama qabiil iyo wax aan loo baahneen dawladnimadu ka baxsan hadduu asagu meesha uu la soo shirtago wuxuu caqabad ku noqonayaa wixii wanaagsanaa ee loo baahnaa si collective responsibility mas'uuliyad wadareed in wax lagu maamulo. marka aniga waxa waaye maadaama talada xoogeeda ay wada leeyihiin madaxda maamul goboleedyadu inay dadaalkooda uu mar waliba uu noqdo mid ay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed waxtar u leh ee aanan ku salaysnayn hebel ku xumay iyo hebel ma gartay ugu hiile.